waa ay kala duwan yihiin qoysasku midba midka kale, laakiin waxaa jira qoysas qariib ah taas oo la kali noqdaan waxyaabo aadan rumaysan karin. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qoysaska ugu la yaabka badan caalamka, kuwaas oo aadan horay u arag. Ka hor inta aynan bilaabin muuqaalkeena maanta, fadlan nagu caawi in muuqaalka uu dad badan gaaro oo like inoo saar. Haddii aysan tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato, nagu soo biir si aan kuugu soo gudbinno macluumaad wax ku ool ah. Qoyska Dugaar. Qoyskan waxa uu ka mid yahay qoysaska ugu tirada badan waddanka Mareykanka. Waxay ka soo jeedaan labadan waalid, Michael iyo Jim, qoys yar. Labadan lamaane waxa ay ku kulmeen gobolka Kansas ee dalka Mareykanka sanadkii 1984, waxaana ka soo wareegay arooskooda 4 sano oo aan waxba la isku dhalin. Laakiin sanadkii 1988 waxay labadan waalid heleen wiilkoodii ugu horeeyay. Markaa wixii ka dambeeyayna waxay dhaleen 19 carruur ah, waxayna kala yihiin 10 wiil iyo 9 gabdhood, waxaana dhammaantood magacyadooda ka bilowdaa xarafka J ama J. Waxayna lahaan jireen barnaamij musalsal caan ah kaasoo socon jiray ilaa sanadkii 2015, wuxuuna magaciisa ahaa 19 Kids and Counting. Qoyska Siono Tasha. Waxaa laga yaabaa inaad iska dhaadhicisay in qoyska Dugaar uu ahaa qoyska ugu tirada badan adduunka, laakiin sidaa ma ahan. Siono Tasha waa nin guursaday 39 dumar ah, kana dhalay 94 carruur ah, iyo in ka badan 33 carruur ah uu awoow u yahay. Waxaana hadda guriga uu ku nool yahay Mr. Siono degan dad ka badan 150 qof, waxaana laga yaabaa in dhaqan ahaan Hindiya ka duwan tahay adduunka intiisa kale. Ninkan iyo carruurtiisa waxay degan yihiin guri 4 dabaq ah, kuna yaalaan wax ka badan 100 qol, wuxuuna degan yahay gobolka Nusaariya ee waddanka Hindiya. Dhammaan xaasaskiisa waxa ay ku wada nool yihiin farxad iyo weliba hal guri, waxa ayna kala qaybsadaan shaqada guriga. Marka ay qaar cuntada karinayaan, kuwa kale waxa ay nadiifiyaan guriga, halka ay wiilasha muhiimadda siiyaan ari raaca iyo beeraha, kuwaas oo qoyska ku tiirsan yihiin. Waxaana dhacda in bariiska ay qoyskan isticmaalaan ee labada waqti ee cashada iyo qadada ay ka badan tahay 100 kilogaram, halka ay isticmaalaan 60 kiilo oo baradho ah iyo 40 kilogaram oo digaag ah. Sidaa oo ay tahay, ma ahan qoyskan kan ugu la yaabka badan ee muuqaalkeena maanta, waxaana jira qaar kaloo ka sii yaab badan ee la socda ilaa dhammaadka. Qoyska Gaagaaban. Ninkan oo magaciisa la yiraahdo Roshan, da'diisuna tahay 55 sano jir, kuna nool magaalada Hyderabad ee waddanka Hindiya. Qoyskiisu waxa ay ka kooban yihiin 21 qof, iyadoo 9 qof oo ka mid ah qoyska ay gaagaaban yihiin, waana waxa ay iska dhaxleen gaabnidan ama joogyaridan. Waxaana dhacda in dadku ku cayaan gaabnidan inta badan. Intaas oo kaliya ma ahan, gaabnidan waxa kale oo ay ku keentay inay ku adkaato dhanka socodka iyo inay helaan shaqo munaasib ku ah. Ninkan waxa uu hadda ka shaqeeyaa dukaan uu leeyahay nin qaraabadiisa ah. Mararka qaarna waxa uu ka shaqeeyaa soo dhaweynta dadka ee maalmaha farxadda, waxaana ognahay in Hindiya ay ku badan yihiin maalmaha la dabaaldego. Qoyska Robinson. Gabadhan oo lagu magacaabo Arlene, taasoo ku jirto da'da 40-yada, kuna nool gobolka Chicago ee waddanka Mareykanka, waxaana dhirirka timaheedu gaarayaan 2 mitir oo dhow ama 1.9 mitir. Gabadhan may jarin timaheeda ilaa maalintii ay dhalatay, waxaana ay dhashay ilaa 3 gabdhood, kuwaas oo iyagana aan jarin timahooda ilaa maalintii ay dhasheen si ay u helaan timo dheerdheer sida kuwa hooyadood oo kale. Haddaba hagaajinta iyo nadiifinta timo intaas dhirirkooda la eg ma ahan arrin sahlan, waxaana dhacda in markasta ay timaha meeranayaan ay isticmaalaan 2 litir oo biyo ah. Waxayna qoyskan ku guuleysteen bilada dadka ugu timaha dheerdheer, taasoo lagu qabtay waddanka Mareykanka. Biriti iyo Abi Hansal waa 2 mataano ah oo haddana isku dhegan, waxaana ay leeyihiin 2 madax iyo 1 jir oo dhammaystiran. Sidoo kale waxa ay leeyihiin 2 wadne,
2 beer iyo 2 caloolood. Haddaba gabdhahan waa 2 qofood oo haddana isku ah hal qof, waxayna dhameeyeen jaamacadda, haddana waxa ay ka shaqeeyaan iskuul halkaas ay ka yihiin macallimiin. mid walibana waxa ay heshay shahaado u gaar ah iyo baasaboor u gaar ah. inkastoo ay kala duwan yihiin dhanka shakhsiyadda, haddana aad bay isku fahansan yihiin, waxaana ay iska caawiyaan waxa ay qabanayaan ilaa marka ay kaxeenayaan gaariga, waxaana ay u eg tahay in mustaqbalka ay wada guursan doonaan hal nin. hooyo iyo wiilkeeda oo bilaa gacmo ah. waxaa haysta Linda oo ku nool gobolka Chicago ee waddanka Mareykanka, iyo ninkeeda oo lagu magacaabo Tim, cudur naadir ah kaas oo sababa in qofku ku dhasho gacmo la'aan. si kasta oo ay u adag tahay, haddana waxa ay ku nool yihiin nolol caadi ah sida dadka kale, waxaana wax kasta ay u isticmaalaan lugahooda iyagoo u isticmaala sida gacmaha oo kale, ilaa wiilkan yar uu noqday mid xariif ku ah dhanka dabaasha. sidoo kale Linda waxa ay ka shaqaysaa macallinnimo iyadoo dhigta maadada xisaabta, waxaana dhacday markii ay uurka lahayd in la arkay wiilka oo bilaa gacmo ah. dhakhtarkuna kula taliyay inay iska soo rido, laakiin waa ay ka diiday. si kasta oo nolosha ugu adkaato, haddana waxa uu diyaar u yahay inuu u noolaado sida uu jecel yahay. qoyska Binkar waxay labadan mataanaha ah ee haddana isku dhegan dhasheen sanadii 1811 bishii Maaj 11keedii, waxaana dhici lahayd in la kala jaro haddii ay soo gaari lahaayeen casrigan tiknoolajiyadda, laakiin waqtigoodii ma jirin dhakhaatiir ku dhiiranaysa qaliinkan. mataanahan waxa ay la qabsadeen nolosha noocan ah, waxayna samayn jireen ruwaayado masraxa iyadoo ay ku heli jireen lacago. waxa ayna geeriyoodeen sanadii 1874 iyagoo jiray 63 sano. waxaana dhacday in mid ka mid ah mataanahan uu u geeriyooday xanuun kaga dhacay maskaxda, halka kan labaadna uu u dhintay naxdintii uu ka naxay walaalkii. walaalihii Jim waa mataano wada dhashay laakiin aan is arag ilaa markii ay soo gaareen da'da 39 sano jir, waxaana mataanahan kala qaatay 2 qoys oo kala duwan markii ay jireen 4 isbuuc. waxaana dhacday in labadii qoys ay u bixiyeen Jim iyagoo midba midka kale aanu ogeyn. waxaana dhacday in sanadii 1977 markaas oo da'doodu ahayd 39 sano oo midba midka kale ogaaday, waxaana la arkayaa inay aad iskugu eg yihiin sida kuu muuqato. labadooduba waxa ay guursadeen min 2 jeer. waxaa sidoo kale la yaab noqotay inay isku magac noqdeen labadii dumar ay markaas kala guursadeen, iyadoo tii hore la oran jiray Linda halka tan labaadna la oran jiray Betty. waxayna haysteen kaas oo labaduba isku magac ay u bixiyeen oo ah Toy. mid waliba waxa uu dhalay hal wiil, mid kastaana waxa uu u bixiyay wiilkiisa Alan. waxaana dhacday in labaduba ay geeriyoodeen isku maalin. daawadeena sharafta lahow, qoyskii ayaa kugula cajiibsanaa sidoo kale kugula yaab badnaa qoysaskii aan kusoo qaadanay muuqaalkeena maanta. waad ku mahadsantahay daawashadaada. muuqaalka inoo laag garee, notificationkana furo si muuqaaladeena dambe ay kugu soo dhacaan.